oday grace guriga ku booqanayo hooyadeen runtii sawirada marka laga yimaado kuwa wejigeeda ku yaala waxa iyaguna ka culus oo qof kasta ka naxaya nabarada yeelada hooyada ku yaala waxa kaloo iyaguna laga naxaya oo qof kasta oo arkaa oo halkan cadiinteeda ku haynaa nabarada qarsoon ee jilka kaga yaala hooyadeen waa qof waayeela gacanta kor ma qaadi karto arrintaasi jaaliska booliska siinay waxa uu noqday dhacdadii ay dhammaantiin wada taagneedeen ee booliskiina ayagu isu garnaqaan inoona soo jawaabaan weliba inoogu daraan inay inoo hanjabaan waxaanu leenahay kawar qareen ahaan dhacdadaasi sidee u dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay waananu cambaaraynaynaa boolisku waa booliskeedii waxayse tahay inay boolisku fahmaan shaqaday hayaan inay cidda u hayaan ay tahay muwaadiniinta shaqada laga rabaana ay tahay inay noqoto shaqo hufan ma aha in la yidhaahdo dhaxantii habeenkiinoo taagiyiin wax lagama sheegi karo xaaja aniguo qofkii shacabka ahaa ee cashuur bixiye ahaa ee ay ku jireen baana waxay markaa tahay in dhacdadaasi boolisku falkaasi maantiroota dhacay in cid allaale ciddii ka dambaysay waxaanu kawar ahaan ku baaqaynaa in cad allaale ciddii ka dambaysay mas-uuliyaddeeda lagu qaado oo cadaaladda la horgeeyo marka intaasi laga yimaado annagu qareen ahaan maalin walba de waan la macaamilaynaa booliskii maalin walba maxkamadii baan isugu imanaa shacabka somalilandna waa ka maray waxa caado noqotay askariga booliska ah hadday qof shacaba isku dhacaan intaa booliska wada dhinac taagin inay mar gacanta wada saaraan ma garanaya sharcigaasi meelay ka keeneen waa sharci darre aad weyn qofka shacaba laba qofoo shacaba ayaa sharciga ogoleynba inay cid isugu tagaan marka kii direyska kuu xidhnaa ee sharciga lagu aaminay ee ummadda awooddeedii oo dhan lagu ururiyey uu isagu noqday inuu sharcigii gacanta ku qaatay qofkii isugu tagaan hadhow toolaya loo cabanaya soo maaha inuu isagoo awooddii oo dhan haysto inuu ku dili karo inuu haddana hadhow toole intuu isu gar noqo uu warbaahinta soo istaago uu yidhahdo isberi yeelo oo uu yidhaahdo waxba maanaan geysan falkaasi aad iyo aad baan uga xunahay runtii ururka qareennada somaliland muddo dheer waxa ay ku hawlanaayeen iyo xuquuqul-insaanka madax bannaanba sidii booliska loogu samayn lahaa dib u habayn taasi waxaanu ka bilownay horta in aanu abaabulno in la sameeyo xeer booliska ku dhammaan taas oo xilligii aanu abaabulay waxa u weyn fulinta iyo baarlamaanku markaa nagala shaqeeyahay in la helo mid goob looga caban karo booliska arrintaasi xeerkooda ku soo baxday guddi madax bannaan baa la sameeyey laakiin lama dhaqangelin ee muddo yar kadib oo sanadkan gudihiisa saan filaya maalintii la ansixiyey waxaa lagu sameeyey amendment ama waxbaa laga bedelay taasoo waxa qura laga bedelayahay in laga saaray wixii shacabka u danaha runtii muddo ayaa qaranada somaliland arrimaha ilibiyey iyo duniyada xogteeda ogaadaan aan horooda digriin hadalkeeda maadaama la ogsoonahay in booliiskuna shaqo hayo dadweynaha booliiskuna mararka qaarkiis ka badan waxyaabala loogaanimay kala dhacayeen kale ayaan runtii u sugeynay intaasoo dhan markii aan kii baarnay waxaa noo soo baxday in wixii ku dhacay hooda garaysay iyo hooyadadii u baahan tahay baaritaan madax banaan lagu sameeyo oo cidda ka hadli kartay go-aan ka gaari kartaa inaan ahayn booliiska laga cabay hadalka booliisku jeediyaan waa hadal qancin kara ee dadweynaha maadaama hooyadii laga cabanayay cidda laga cabanayay iyadu inaan odhan karin anagaa baarnay oo kolkaa waxay lamelihiin marka waxaan soo jeedinay in la sameeyo guddi madax banaan oo dad muxtaram dowladda somaliland ku jiraan oo aqoon booliis oo aqoon shaqeeye baariga ka guugaara waxaan saa usoo jeedinaa laba sababood oo yihiin oo marka koowaad anagu qareenaan nahay qareennada qareeno boqolaal qof waa ka tirsan haddana maanta ma garanayno meelaan ugu dirahooda oo ku odhan karo waddadaa sharci baa la maraaya oo booliiska laga cawdaayo soo marma jirto waayo waa ogeydeen xeerkii booliiska muddada 20 sano laga soo shaqeynayay qodobadii shacabka ilaalinayay ee guddida madax bannaan cawashada lagu sameynayay waa laga saaray tii waxay keentay markaa inaan siraalka booliiska meel laga caban kara shaqo haya booliisku dadku inuu ku gefi karaa signa waa lagu gefi karaa waxaa muhiim in la helo meel ka madax bannaan booliiska oo tegi karo laakiin maanta waxaa leeyahay dad booliiska cabantiisa booliisku baa tegaysa taasina meel adduunka kama dhaco qofkii dhibta laga sheeginayay isaga la yidhahdo ayaa dadka ka qaadi kara oo waxna ku xukumi kara waxna ka xukumi kara taas baa keenaysa marka inay dadku warbaahinta soo istaagaan oo ka qayliya marka saddex masalo waaweyn baan soo jeedino marka koowaad ay wada garaysa hooyadii guddi madax bannaan loo saaro arrinta qarniga arrinta laba intiba habeen booliiska lagu sameeyey sal iyo bacd oo saddex masalo waaweyn wax laga bedelo waa in laga bedelo qaabka booliiska loo shaqaaleysiiyo si dadka booliiska loo qoreeyaa in muqdaan dadka ixtiraamka iyo akhlaaqda iyo dadweynaha iyo qaanada ixtiraama laba in la sameeyo mid booliiska laga caban karo oo ka madax bannaan booliiska oo dadweynaha booliiska wax ka tirsanaya u tegi karaan kolkaa dadweynahaasi waxay sheeganayaan sax yihiinna
قاعدة هدي لقيت بدري بوليس كنا يراقبوا لقيت بدري هذا بس الحاجة هو بوليس كل مش عليه محمودة مدرية ومحمود المدرية قال لك عادي وهذا دي محمود المدرية يقول ده يروح مورس على بوليس كل مش غير شيء مدرية بوليس كل مدرية ما هي أي راح عامله كنت وحادي الله ما هذا كل أديك بوليس كل صوته سلقيت البوليس كل يفهمه إني أديك بعيال هنا استحتار بحوك الدولي قفك بناء بوليس ما العدالة وصوته من اللي qofkii ka soo doonayay adeegan in lagu qabsado rabshado ka dhacdo gaariga meesha dhigtay baa khaldaay ma ahayn booliska shaqadooda ay tahay dadka gobolada ka dhiganayeen meel u diyaariyeen iyaga dadku u yimaada biyo cabaan iyo fariistaan nadiif oo wanaagsan ay haa ni soo qaataan si fahmayeen bixiyaan ishaarada ku xiriireen oo dhig la inaan waa booliska anagu wadana qaranada dad xoqosanka muddo dheer ka soo doonayay oo weydii hada muddo ku dhow 2 sano waan ku caansan sababtu maxay tahay waxaan u qaadanay maadaama hoggaanku siiyay fursad la siiyo وحكوا بدري وأنا مرحبا مع في الوقت لكن على شوي كان هيني نسوق عليه بس كوي بدري يقولون هين وده كلاس كلي إنه ما هذا القصة حافظة تقارن هذا كرتها هاي ترى هذا كلنا على شو نسوق على وبدأ نويشها